السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada channelkeena ka xaruuf faqriga. Haddii aad nagu cusub tahay soo dhawaa, haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. insha Allah maanta waxaan idin wadaa cabitaan aad ka heli doontid laba shay ka samaysan insha Allah. haddaba ma doonaysaa cabitaan jirka iyo jismiga iyo iskiinkaba kuu dhisaya? haddii ay jawaabtaadu haa tahay, haddaba nala soco sidaan u samaysan doono cabitaankeena. wuxuu ka kooban yahay laba shay oo halkaan uga jeeda. meeshaan waxaa inoogu diyaarsan caano, sokor iyo barbaay iyo biyo qaboob ah oo farinjeerka kasoo bixinay. intaana isku soo hagaagsan doonaa. marka hore babaay saan suuqa uga keeno ahaa waa dhaqeena haduu eebidmo waa nadiifinayna. marka aan nadiifin kadib ayaa aan jarjari doonaa. waa shay walba marka aad suuqa keento waxaa wanaagsan in aad nadiifiso. shay marka aad nadiifiso iyo marka aad nadiifin isku mid maaha insha Allah. haddana waa jarjareena isla socod wanaagsan. meeshas waxaa iskaga aruurin doonaa qashinka. waxaan rabnaa inaan fiirino in uu si fiican u bisiliyo, inuu bajiiq yahay iyo in kale inte waay. marka meeshas meel yar aad ka fiirisid inuu jilcan yahay in kala ku kala cadaanayso oo mindida ku kala ogaanay markaa ku jaraysid. maasha Allah hadda maaskoto waaye babaaygeena jileecna maaha ceyriinna maaha biseelna maaha. taasaana wanaagsan mid cambaha cabitaan ahaan aad u samaysanaysid. intaas aad isku soo jarjaraneena oo qashinkaas ka bixin ka bacdi saas u soo jirna qaandada ku soo jirna mindida ku jarjaraneena. haddii aan dhahno waxaa laga yaabaa mindida in ay noo qaado qolofta mas waxay ku rabtay laakiin qaandada markaa ku hooleysid maasha Allah waa u boogay isla socod wanaagsan. saas hadda u soo wada diyaarsan doonaa isaga dhan oo waa soo hoolaneena. kadib baa saxankaana ku soo diyaarsaneena. garaafahaas waxaa noogu jiro 3 galaas oo biyo qaboob ah oo aan farinjeer ka soo bixinay. maasha Allah qashinka kale inta iska saareena. kadib saas u soo asidan u soo saahad u hoolanayna kadib meesha ka sii wadan doona haduu eebidmo. hadda waa kana waa soo dhameynay. meesha waxaan ugu diyaarsan caano saa hore idinkugu sheeg oo 3 qaande ah iyo 2 qaando oo sokor ah iyo waxaan ugu diyaarsan babaaygi aan soo jarjaranay meesha noogu diyaarsan. waxaa soo qaadan doonaa qalaadada makiinadaas meesha noo taal waxaa makiinada qalaadada waaye. waxaa soo qalaadadana hadda ku isku wada geysanayna oo babaayga hadda ku shubanayna aan soo hoolnay. wallaahi lama qiyaasi karo macaankiisa. jirkan wuu ku dhisaa mideeda kale iskiinkan wuu ku qurxinaa. maxaa ka wanaagsan isku hel cabitaan iskiinka iyo jirkaba ku qurxinaa. wallaahi aniga waa ka helay adigana soo baroowe insha Allah. waxaan rajeynaa inaad ka heshid. meeshaan isku wada geysanayna biyaheena hore oo farinjeerka qabowga ah aan farinjeer ka soo bixinaa ku darsaneena. waay barf saaidna ma jecli qaboob saaidna ma jecli kuleelna ma jecli. hadda waa isku dheeli tirnaana oo hadda qalaadada ku shubaneena haduu eebidmo isla socod wanaagsan maasha Allah. saas hadda waa noo diyaarsan yahay. keliya waxaa naga dhiman in aan shiiditaanka ku shidno. kadib waa shiday oo shiidmaya waa kaas hadeer maasha Allah. asiga dhan wuxuu ku noqonaa rasiin biyo badanna looma baahno. anaga hadda hal xab babaay iyo 3 qaando sokor waa kaas saas oo noo noqday. jileec saaid ma fiicna cabitaanka haduu waxa protein ka rabtid oo nafaqo ka rabtid biyo saaidna ma fiicno. meeshaas hadda waxaa noogu eg cabitaankii aan soo sameynaynay. markaa naga ilmaamin sheerta commentiga subscribe-ka insha Allah. anigana waxaan rajeynaynaa inaan idin soo badino fiidiyoyaashan kuwan iyo kuwa kale ka sii badanba. hadda waa kana waa soo dhameynay koobka ku soo diyaarsaneena maasha Allah. sidan
لا lagama sheekeyn karo adna soo baroowe insha Allah kulanti dambe wanaagsan iyo wax kale intoo aad ku faraxdaan insha Allah. Assalaamu calaykum.